Dhowaan, indhaha caalamka ayaa soo qabtay xasuuqyo iyo xadgudubyo aad u fara badan oo ka dhacay dunida, gaar ahaan dalka Falastiin. Waxaa la yaab noqotay in la isweydiiyana mudan shuruucdii iyo xeerarkii caalamiga ee jaamacadaha lagu baranayay ee mabaadi'diisu iyo xeerarkiisu ku xusnaayeen isla markaana tilmaamayay ilaalinta xuquuqaha, taasoo isku beddeshay mid fashilmay. Aan idin su'aale, ma mudan tahay qawaaniintaasi iyo xeerarkaasi in jaamacadaha lagu barto? Sidoo kale, waxaa raaligelin ka bixiyay macallimiin iyo barofesoro wax ka dhiga jaamacadaha waddanka Lugnaan, iyagoo ka raaligeliyay qawaaniintii iyo xeerarkii ay bari jireen ardayda. Haddaba, wax ka ogow shuruucdaasi